Asalaamu calaykum. Sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay islaantan oo ahayd islaan kaligeeda nool. Islaantanna waxay ahayd islaan u shaqaysa cidaha oo aad iyo aad u fiican. Gabar naxariis badan ayay ahayd. Dadkina waa ay jeclaayeen. Maalin ayadoo shaqadii ay ka soo laabatay ayay waxay aragtay 3 caruur oo aad iyo aad u ooynaya. Cidna la joogta ay weysay. Markii ay raadisay ayay weysay. Waa ayna soo qaadatay caruurtii. Ayada ayaa korsatay. Sanado ka bacdina gabdho waaweyn ayay noqdeen. Ayadana xanuunkii ayaa ka tambatay oo waa ay xanuunsatay ilaa ay ka seexato. Gabdho ka mid ayaa waxay dhahday hooyo waa ay xanuunsanaysaa dabana uma hayne ee qorshe keena. Mid ka mid ayaa waxay dhahday anaga ayaa nalka rabaa in aan ku dadaalno hooyo aad dawo u keeno. Gabadhii yareed ayay waxay ku dhaheen guriga sii joog. Hooyana waxay rabto u qabo oo ha ka diidan war ha ka diidan. Anagana dawo ayaa u sii raadinayna lacag ku soo gadna ayaa raadinayna. Gabadhii waxay isku ballameen mid walba meel inay wax ka raadisaa laakiin labadoodiba looma helin shaqo oo mid walba waa ay weysay. Markay isku soo laabteen ayay ooyeen. Xaafadii ayay ku soo laabeen laakiin wadadii ay waxay ku arkeen harqaan. Talo ayaa meeshan ugu tagay is dhaheen. Mid ka mid ayaa waxay tiri anaga hadda hadii qaadanaysa yeelina. Gabadhii ayaa ku dhahday horta noo soo qaad waan ka fikirayna waxaan ku sameeyna. Waa ay soo qaateen. Gabadhiina waxay keentay caws. Gabadhiina waxay ka sameeyay tabab cajiib ah. Markay arkeen si ay ku soo baxay ayay aad uga heleen oo maalintaas waxay bilaabay inay wax badan u talaan iyagoo aad iyo aad u faraxsan. Maalintii kale ayaa la gaaray. Waxay bilaabeen inay tuuladii keenaan. Gabadhii kale ayaa waxay ku dhahday anaga waqti badan ayaa taaganaa wax naga gatana ma aragna. Markaas ay ku dhahday walaashay iska sabar inay dad badan noo imaadaan waa laga yaabaa naga gataan ee qalbiga wax fiican gasho. Dadkii tuuladii waa ay la yaabay markay arkeen tababkan cajiibka ah waana laga wada gatay. Gabadhiina waxay ka heleen lacag aad iyo aad u fiican. Hooyadoodiina waa ay ku daaweysteen oo Ilaahay waa u caafiyay. Sheekadeena halkaas ayay ku dhamaatay.